السلام عليكم أحبابي سود هذا موضوع جوتان إن شاء الله دور بنالك نقضاء موضوع شرحات كبيرة اكتب بريجنانسي أو لا يقانو المخالون هذا محا سوا وركه المها قولا هديات كعصب تهجن الكي سبسكرايب صار هديات كعصب بين مقاطع الجري ونشي شركة قاع كمدا أصحاب هذا هديان كل كلنا مقاطع لما أنت ilmaha ku abuurma minka banaankiisa waxaa loo yaqaanaa ilma qaloon ama ectopic pregnancy. Uurka noocan ah wuxuu dhacaa marka ukun bacrimin weydo. Uurka noocan ah wuxuu ku dhacaa marka ukunta bacrinsan ay ku dhigto boos aan ahayn booskii loogu talagalay oo ah dhinacyada minka. Uurka caadiga ah waxaa ukunta bacrinsan laga rabaa in ay ku dhigto dahaarka gudaha ee ilma galeenka. Uurka qoolan wuxuu inta badan ku samaysmaa mid ka mid ah tuubooyinka ugxanta kaasoo qaata ama loo yaqaano ugxan-sidaha. Uurka qoolan sida caadiga ah maahan uurku dhamaado guud. Ugxanta bacrinsanna maahan mid badbaadi karta. Uurka sii korayana wuxuu dhaawacayaa xubno ka badan kuwa taranka. Haddii aan laga gaarinna waxaa halis geli kara nolosha hooyada. Haddii si dhaqso ah looga gaaro uurka qoolan, waxaa suurtagal ah in hooyada ay mustaqbalka qaado uur kale oo caadi ah. Haddaba maxay tahay astaamaha lagu garto ilmaha qoolan ama uurka qoolan? Xilliyada ugu horeeya ee uurka qoolan waxaa laga yaabaa in uusan yeelan astaamo lagu garto ama astaanta ay kala siman yihiin uurka caadiga ah sida caadada oo aan imaan. Haddaba astaamahaasi waxaa ka mid ah 1. Lalabo ayaa ka mid ah 2. Naasaha oo danqada 3. Inkastoo uurka qoolan uusan sii badbaadi karin haddii aad iska qaado baaritaan uurka ah, waxaa soo baxaysa in aad leedahay uur. Haddaba astaamaha kale ee lagu garan karo ilmaha qoolan ama uurka qoolan waxaa ka mid ah isagana 1. Ama dhiig khafiif ah oo ka yimaada hooyada 2. Calool xanuun 3. Xanuun gudaha ah miskaha lagana dareemayo 4. Garba xanuun 5. Dareen saxaro oo soo booda ah 5. Dhiigbax gudaha ah haddii ay tuubooyinka minka dilaaceen 7. Madax wareer 8. Suuxdin. Haddaba maxaa sababi kara ilma qaloonka? Uurka ayaa ku samaysmaya tuubooyinka ugxan-sidaha ama ugxan qaadista ku shaqo leh. Haddii ugxanta ay ku xanibanto gudaha tuubooyinka, sidoo kale waxaa sababi kara hormoonada oo aan isku dheelitirnayn ama ugxanta oo aan si wanaagsan u korin.